بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ayaa mahadoo idil ay u sugnaatay fi اdunya wاlآakhira. marka hore waxyaalo ruuxa muslimkaa aan madmadow haba yaraatee inuusan ka gelin ay tahay ayaan isku baraarujinaynaa in sha allahu tacaala. sida haddii lagu yidhaahdo yaa abuuray makhluuqaadka kuwaan arkayna iyo kuwaanan arkaynba, allah ayaa abuura leeda. allahu khaaliqu kuli shay. sidoo kale yaa iska leh haddii lagu yidhaah, su-aasha jawaabteeda way ku fududahay. yaa iska leh allah, walahu kulu shay. yaa maamula allah subxaanaه wa tacaala. bal lilahi اlamru jamiica. qul ina alamra kulluhu lilah. qul ina alamra kullahu lilah. arrinkaas markii uu kuu caddaado, alxamdu lilaahi waa noo cad yahay. waxaa la rabaa in aad ka dawowdo yaa ay tahay inuu yidhaaho waxaanaa xaqa, waxaanaa baatila, waxaanaa xalaala, waxaanaa xaraama, waxaanaa xasan hoo wanaagsan, waxaanaa qabiixa hoo xun, waxaanaa saxiixa, waxaanaa faasida. yaa ay tahay taladaas yaa iska leh? allah kaliyaa iska leh subxaanahu wa tacaala. watamat kalimatu rabbik صidqa wacadla laa mubadila likalimaatih. watamat kalimaatu rabbika صidqa wacadla laa mubadila likalimaatih. taasna waa midda labaad. adigoo marka halkaa ka ambaqaadaysid, adduunka hadda aad joogto iyo aakhirada aad ku sii socoto, yaa ay tahay inay kaaga taalo bixiyaan. talada aan talo lag barbar dhigin yaa ka bixinay? allah subxaanahu wa tacaala. asaa waxaana xaqaya waxaana baadil asaa ku dhaxay. taladaas xagay ku melantelantaha marka taladaa warkaa alle ee alla ku leeyahay waxaana saxa, waxaana qalada, waxaana xaqa, waxaana baatila uu ku leeyahay, xagee loogu hagaaga? alqur'aan اlkariim waa warkii alla subxaanahu wa tacaala 114 suuradood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu deeqay. asigaasaa marka aada la tashanaysaa, la taliye asaad ka dhigaysaa qur-aanka. mustashaar ma taqani? la taligi aada leedahay yaa col ilaah, jawaabta asaa ku siihay. yaa saaxiib ilaah, jawaabta asaa ku siihay. kulli noloshoo dhan fi dunya waalaakhira taladii oo dhammaystira halkaasay kugu taalla. taa horta waa inay lama taabtaan agtaada ku noqoto, ruux muslimaba haddaata. oo waaba nahay muslimiine, laakiin waa inaad ka jawaabi kartaa su-aalahaas hadda aan dhahnay ama aan hormarinay oo si cad ay kugu yaalaan. halkaa marka annagoo ka anba qaadayna nicamka aan haysano maxaa ugu weyn? waxaan nicmo haysanoo dhan yaa noogu nicmeeyey?
الله يا وربحين تسديبه ألا ديبه وما بكم من نعمة فمن الله إن بدنا ويحفظنت بحمد الله وحلم إذا نعم كاس وحن تريكرنا مي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كاس مركا محاوقوين xoolaha iyo caruurta iyo waxyaalo badan waa nicam sooma nicamkaasoo dhan waxa ugu weyn sida alla yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qul dadka ku dheh suuratu yunus aayadda ku jirta waay bifadli illaahi deeqda alle iyo wabiraxmati allah naxariistiisa fabidalika kaas oo labada shaya falyafraxuu dadku ha ku farxaan huwa khayru mima yajmacuun kaasaa ka khayr badan dadku waxay ururinayaan xooga aada maaragtay xoolaha haddaad heshaso ad ugu farxsanta soomaarka waa lagu farxa warun laakiin waxaa ka khayr badan sida alla go-aamiyey fadliga alle ee naxariista alle fadliga alle maxaa looga jeedaa aayaddan naxariistaas maxaa looga jeedaa waxaa ka sugnaaday rag saxaabada ka mida ridwaan ullahi calayhim inay ku fasireen fadliga alle aayaddan alislaam raxmadda allena ay ku fasireen halkan alqur'aan limaada alcidaau lilqur'aani wa ahlihi waa tii cunwaanku ahay mugta iyo alqur'aan iyo ahl alqur'aan waxaa sidoo kale alla yidhi wadkuruu nicmat allahi calaykum wma anzla calaykum min alkitaabi walxikma yacidukum bih fii suurati اlbaqara wadkuruu nicmat allah deeqda ilaahay xusuusta calaykum warkiina u nicmeya ha ka dhacsanaana mar walba xusa nicmadaas maxay ku fasireen nicmat lislaam sida ibnu jariir طabri aad ka helaysa raximah llahu tacaala wma anzla calaykum min alkitaabi walxikma wixii alla korkiina ku soo dejiyene xusuusnaadu ha ka dhacsanaana oo maxay yihiin min alkitaabi waa kitaabka qur-aanka iyo walxikma waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam halka waxaad ka qaadanaysaa limaada alcidaau lilqur'aani wa ahlih qur-aanka marka la sheego sunnadu kama harto wamaa anzalnaa alayka wamaa anzalnaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas ma nuzila ilayhim iyo wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ila litubayina lahum qur-aanka markii la sheego sunnadu kama harto taana waa inaan fahano anagoo marka halkaa ka anba qaadayna nicamka aan haysano waxaa ugu weyn nicmat lislaam maxaa xiga nicmat lqur'aan waxa la isku haystaxay yihiin marka waxaan adduunne xasilooni ku heli lahayn oo qalbigeenu ku degi lahay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub dad badana waxay ku leeyihiin akhay waxa waaye muslimiinta degaanadooda deganaan ma leh adduunka dhammaan deganaan lahayn gaalo waddamadooda iyo wixii raacayba deganaan ma leh ayaga laftoodu dhulku inuu nabad yahay haddaad moodo halkaanay ka gubanayaan oo qubqacdu ka socota waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan deganaan wax la yidhaha iyagu waa kala fog yihiin adigu laakiin waa degan tahay madaafic iyo xoogaa ha lagu soo raro laakiin saad u hurdaysa kaala arag saad u xasiloon tahay aladiina aamanuu watطma'inu quluubuhum bidikri اllah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub deganaanta halkan waayo jirka maaha kuwa hadda waa degana dhahay waa kuwa ayagu alxaqu اlakhiir lilinsaan waa kuwa dhahay waa inuu sida ugu fududa leesu dilo xaqaas waa inuu helo kulaha ruux isdilaya kaanahu yaruux ila اljanna wahuwa fi lxaqiiqati yaruux ila الnaar maadaama kaafira ninkii waqaala rajulu muminu min ali fircawna maxuu uri yaa qawmi inamaa hadihi اlxayaaةu اdunya mataacun uri adduunkan waa wax yaroo ku meel gaar deganaantu intay jirtaa uri wa ina alaakhirata hiya daaru اlqaraar meel negi waa mahaas qofkii meel wanaagsan ka hela marka horta taas waan isku baraaruji gelihaynaa oo dadka wax badana dhegaha lagaaga afuufaho qaladehe
qur-aanka dhegayso وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون xadiidka dhegayso يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون أنا marka halkaa ka anba qaadayna nicmo dhan anagu haysano rajada adduunka deganaantaad haysato iyo bacda almowt rajadaad leedahay waxaad ku haysata xayi waa alislaam walqur'aan sooma xoolahan intaa looga tegaa walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum isbahaysiyaalka iyo mahanay ku dhan tahay laakiin waxa kaliyahoo aakhira haddaad tagto xafiiska ugu horeeya ama meesha ugu horeyso lagugu qaabilaayo su-aalaha lagu saala man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka intaas haddaad ka jawaabtane ina alabraara la fii naciimin maqlaysa soo ma hadda aan maqlayna maqribka imaamkana dushiyahay jazaahu llahu cana khayra ruuxii saddexdaas ku dhacane g a d ha kamidaadu hadduu rabo wax uu ku dheefaayo male wa ina alfujaara la fii jaxiim warbixinta alleya fabiأyi xadiiثin bacda allahi wa aayaatihi yu'minuun horta hawshu halkaasay ka dhaqaaqaysaah waa inaan la soconnaa bal cunwaankan limaada alcidaa waa maxaa u sababa colaadan lilqur'aani wa ahlih qur-aanka ee dadka la xejinaayo lagu haayo yaase ku haayo horta waxay tahay intaanan bal cadowgaas qeexan gaarin cadowgan ka boodaynaa jiro halkaan ku jira annagaaba col ku ah qur-aanka annagaa col ah soo ma ya qur-aankiiyo col ah gaaladiiyo col ah adigu amaad col la taha ama ma iska hubis ya hadda ka hor odayaa waxuu iri maog tahay allahuma ahlik ilkafar maxuu iri damir acdaa'aka acdaa'a diini anugu kolley aamiin dhihi maayo uri ilaahu acdaa'a diin gamka sii markii la yidhaah anugu kolley aamiin isku dhihi maayo uri walxaan isku oga ya sababto haddaan acdaa'u diin anigu ahay ka war anugu oo waxaan ku taalayni mukhaalafaad badanaan sameeyaa hadda u fiirso adaa cadowa mar haddaad adigu mukhaalafaad samaynayso ood adigu diintii garab marayso ood adigu qur-aankii garab marayso ood xadiidkii garab marayso laftaadu colaadda qaybaad uga jirtaa laakiin nisbadu intay la eg taha dhe adugu iska fiiri baasha colaadda waaweyn oo boqolkiiba boqol u imaanaynaa laakiin kuwo kale oo weliba la rabo in nisbadoodu maalinba meel marto ogow inay ilaan macaasida laftooda soo dhibaato ma inaan ogaanaa laga maarmaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyadoo nabi moxamed alayhi salatu salaam hogaaminaya qaswatu uxud sooma maqlina mukhaalafay sameeyey qur-aanka iyaga khilaafeen soo maa qur-aanku ilaan waa xisnulxasiin islaamnimadu waa dhufays kuu oodan waay dhufayska haddaad meel ka dhaawacdo xabadihiisoo shub maayood istaag lahayn oo khutubaadka shaydaanka ee wasaawistiisii ah soo kuu soo gudbi maayan ilaan meelaad bolketi ka bixisay soo maha ama meelaad waxaad ka bixisay wax yaroo ku daarsanay waa kugu taallaa bahasho nab acdaad ayadaysa in yar kadib oo saxaabada ridwaan caleyhim mukhaalafaday sameyn maxay ilahi maxuu uri ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum shaydaanu limaada bibacdi maa kasabuu istazallahum shaydaan waa saxaabadii hadde ridwan ullahi caleyhim marka ragga islaamka maanta u soo jeedoo nafya maal ku bixiyaya laftoodu meeshaas amay colaada qod uga jiraan isweydi adugu isweydi saxaabadu way cabsan jireen ridwaan ullahi calayhim ayagoo ilaahay ugu bishaareeyey janno ay haddana waxay dhihi jireen makriga ilahay kama aaminahay dhihi jireen illa waa aayaddii mogtaha falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun marka bayna alkhawfi waraja inaad noqotaa colkaas marka annaga lafteen allah naga baxsho ilaan meelo badanaad maaga biyo cabaal raadi markaasaa laga yaabaa inaad qayb badan ku tagto marka laakiin cadowga rasmiga waa ka hadda nimankan
gaalada nooc walboy tahay iyo munaafiqiintu waa isku barnaamij waay qur-aanka lagama karo marka looma dhawey karo nabiga calayhi salaatu wasalaam ma maqli karaan sunno ma maqli karaan wax haysta ma maqli karaan maxaa u sababa hadda balaan fiirina in sha allahu tacaala qur'aanka laftiisu waxa uu ka yidhi meel kale caawa ma aadayna in sha allahu tacaala bal aayadaha qur'aanka iyo waxyaalaha aan intaan hadda waqtigaysana ka gaarin kow horta qur'aanku wuxuu yahay yahdi ila rushdi waay rushdigu u hanuuniyaha rushdigu waa gayiga didkiisa waa rushdi iyo gayi waa iska soo horjeeda wain yaruu sabiila algayi iyo sabiila rushdi soomaarka jinkii markay dhegaysteen sida alla noo warramo maxay yidhaahdeen inaa samicnaa qur'aanan cajaban muxuu qabana yahdi ila rushdi gaaladuna maxay yihiin waa sufaha oo safahay baadilkay wadaan maalin walba sawiqnimo iyo seegseegnimo ayay dadka ku agaasimaan qur-aankiina muxuu ku agaasimaa rushdi arki ma karaan marka maxaa yeelay meeshay iyagu u socdaan meelaan ahayn oo dadku agaasima wixii marka ay qabteen oo dhan ayuu wuxuu ka dhigaa mid burburinay ma aqbali karaan marka sabiila rushdi qur-aan ku agaasima sooma ayaguna maxay rabaan sabiila algayi dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kanuu canha gaafiliina suurat alacraaf soo mahay qur-aanku sidoo kale aayaddaas halkaasaan ku daynayna insha allahu tacaala bal si fiican tafasiirta iyo qur-aanku waa sida waxaa kaloo qur-aanku ilaahay ka warrama qur-aanku waa xaq waxay iyagu wataana waa baatil qur-aanku wuxuu marka hore casharka uu kuu bilaabayo waa waxdaaniyat ullahi waayo subxaana wa tacala qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ayaguna maxay wataan baatilay wataan ila waatiya dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil baatil iyo xaq marka ma wada shaqay karaa bal naqdifu bilxaqi cala albaatil qadafa ma taqaan qadiifat lhaawan iyo waa tale mogta hoobiyaha gantaalaha hoobiya idan marka qur'aanku marka aayadihiisa la akriyo waa gantaal alla tuuraayo baadilkaymaha ku haayaan ow ku tuuraa bal naqdifu bilxaqi xaqu muxuu yahay waa qur'aanki waladii unzila ilayka min rabbika alxaqu soo mahay cala albaatil baadilka wax allaala wax adduunka hadda ijtihaadaadkoodii ka ugu dambeeya khulaasadii ilbaxnimadii ugu dambayso orginaalka adoo birimada ahayd waa dimuqraadiyayni ma garateen waana makhluuq la caabudayo khaaliq lama caabudo waad ogtihiin diinta islaamkana macbuudku yow yahay allah dimuqraadiyadane makhluuqa la caabudaa ama ha loo bixiyo sharci dejin ama hal odayo keligii bahasha babisaanay ha noqoto adigu hayr allahi lakum diinukum wali diini wax shaqa isku lama soo ma dadaa xoogaa iswaafaji maaga laakiin waa ku xiiqeen maxaa yeele makhluuq wixii ilaah ka dhigi maagaya waa daalayan moogta weligii naqama inay alla addoon u dhaqnaada aa dhaafaysa maahine adigu kii ka dhigimana waa ku xiiqe noolow si adugu wado marka dambe waa dhimaha yaa baaqi naqaaya alxayu aladi laa yamuut marka baatilkaan ku gemin waa cala albaatili waxau ku sameeya marka fayadmaguhu madaxau ka kala tuura waa bishaaqa faidaa huwa zaahiqu waa nafbaxa baadilkoodii dunida intaas maalka ku bixiyaan nafbaxo waayo haddaad aayadaha ku aqriso qur-aanka marka inay jeexjeexaan muskul ku ridaan wax uuna ay ku sameeyaan waaba nacaanba arki ma garan soo ma sababtu wax kastay sameyn ebaruu ka dhiga waxay tiyatii soo tababaraayeen oy dhahayeen tababarkii ugu dambeeyaa la siiyey in yaroo qur-aanka akhrisataa ka raayo wayse cerya dhul bay ka joogi lahay asay leeyiin waa soo batow haya xagay ka sooba warshadee soo saaro wayse warshadan soo saaraysa idinku wax ma reebana oo si dadban si toosaba u dili maagteen uqtuluu abnaa'a aladiina aamanuu wiilasheeni waa laayeen kuwa yunaskay u sameeyeen markaasaa waxaa leeyahay waa aqoon-yahan ibliisowna arda u yahay asaatidadiisu waa shaayaad waa gaaladii soo ma markaad nabi maxamed alayhi salatu salaam iyo khulafaa uraashidiin u sheegto waa duda asuu leeyahay ninka taa wax asbaaddaasana gillow aryaa
ودادات مروي سوايه أقويها نمذا أقويها الله غنماتها وأنا آخر أقول يعني إذا كف غينه تاسنه وحي ولا عليهن قايبة كتح وحال بيسع قرآنكم حويه ضدك ومجدية كبحنا أصعوب بحنا نورك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أيقون مرة بان بحيث أيقو حيكبحيان ضدك نورك يكبحان أسي وحي قليان ظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات شقدوا دي وكنسل كديقا مرة بان مرة وإن جحجحان كو سحرودان سحر هير مقال كايغان هير باديها حار إيا بن إيا ليلة إلا أنهم ما يغانين كلمات يرير مقته يا واجه وريه مركا waxa keenay culaada noocaasa kamid waxa kale kamida quraanku wuxuu kuna lillatihi aqwam sida aayadii marka hore aan ku bilow in hada alqur'ana yahdi lillati hi aqwam ayaguna dadka xagay u wadaan waa fircawn koodi meesha u wada wama ahdiikum illa sabila rashad yawliya xagu sabila rashad ku wada yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum nara illa lakasu si wada wadadii cadeed cagta saartay ku caraabi ku dhigi jiray وعلمي فرعنا هذا مقته قال له عربيه هاي هاجي بلاي قال لي هذا سوى ما قال لكن هذا يلقى فهم هاي برنامج كاس الحمد لله ده إلى هيد انتو سمعس يا هذا أرك تمية غير ما أنا ده أرك مرجع واحد ما مرتيا لا ربا إلا فهمه قرآن كوحل ولد تريد أيه وحاسوك هلا لله تيغمك يقول حاجة يوضع ضدك جدكاس وهنوك وما أقلبا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وجد كيدتك كدوايه واحدة تسالؤون عن سوقات غادينا آيات وحكى له القرآن كاللغو يقانا وبصائر وإندهاج حق يبادلتك الأركلين قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصره فلنفسه ومن عمي فعليها القرآن كوا إنده وحي كسير نمعويه وإن الآن سوما حد إنده أيقو ضدك إن إنده ترانا قرآن كان إنده أفيقا وإنه مركا لا دقالوا إلى قرآن كان كتشوقوين أي مركا كوب مارتي السحر وذا المقال كان وركوض الراعين عوضا هذا بصائر من ربكم صومين وهدى ورحمة صومين قرآن هو عافمات يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ما في الصدور واللفت فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أيقو وحي والتاني معين مرض وقندو أيدي سوايدتك أين كشوان أي رباه ما قرأته تاسني وحي كان إلى الله على تمان سابته وحي والتاني كسور شيء صوما قرآنك هذا وحا كمذا قيم واي كتبتيو لن أسا قيمك كما تغني ilmaha agoonta ninka u taagan ama ruuxa u taagano manaaficda na iyo waxyaalaha dheefta lana ogaasimayo waxyaalaha dhib kale ka agaasimaa leeyahay soo ma taqaaniin qayyim al-yatim quraanku waa qayyim alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima qayyimka waxa laga wadaa kutubto dhan wixii qalad wixii lagu kordhiyay wixii tabdiil lagu sameeyay tagyiir lagu sameeyay taxriif lagu sameeyay asiga halbeeg oo wixii oo dhan oo sheegayo qaladka lagu sameeyay marka ma garatay arki ma karaan marka wixii ka soo rada waaba nasakhay moogta wixii waxa kamida taasa kamid quraanka waxa kamida muslimiinta u dhaxalkoodii yahay ayaw kuma jiraan dhaxalka thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina hadhihi al-umma dhaxalki waa ulama warathul anbiya soomahay hade ayagu kuma jiraan marka maadaama ayagu ay dhaxal la'aan yihiin oo aysan waxba haysan nicmadan arki ma kara saadarteeda waa inay jeexjeexaan ee muskulaha ku ridaano ay ku saxarooda intaas waxa waaye xaa ku raacaya gaalada oo quraanka saan u yeelaya ahalkiisana hadee waxay ku dhigaan waad arkayseeno meel walba in lagu la diraayo waa ujeedi laakiin hadda quraankan ka hadlayna ahlu quraan waa dadka rab inay danqadaan waay meeshaas markaan joogo hadda dhulkan quraanka lagu la dheelay amaan ma ka jira amaan waa ka jira maxaa dhacay
أمان واكجي لكن وأمان قالوا ديمقراطية إيه يعني قال لماذا مركان صوك وبا كنا بتجلس لكن إسلامي ما كنا بتجلمي سادرت هذا ضدك آدي أما ضدك ونارت يا وحكستها كو قاداني ومالي والبوال حنوجيها مر مسجد كيال وحارة مر كتاب كيال شرشرة وحنون سنة مركادو سو حنون معي هل كجوكتات كو حنون سنة كور رقف كهل كجو سو كمدر حديث وح قرآن كمذا إنه دقن قليها اللي قدر يا منه الله ديره إذا أمان كم وجه سيد أيجا بأنت أمان كودي وصنوالي قال هذا أنت أمان ومالي علي وحي أيجو أي ربنا الديمقراطية دي إيو أبر ولا كفر واي قال لي أمان ماله ليه ماشي أمان كذا أنت اللي قصوقا يبل ما لك لا صومر مر أنا جنا حاجة أمان ماله محايل القرآن كيا لغوس حروها يا سما أمان كمين أقول أمان كذا جرمرك أسوق أمان كيسي واي قناه واحد برنامج خدع سنيا واي ولكن هذا وحسوق الجلو هايان هذه ها هذا كورا وضل يدي مقتاه أو شعر مركو وراعي الشاة يحمي ذئبا منها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب إذا جنك إلى لها وحوك إلى لها ووير كإرجع الله كورنا دي وير كإرجع لراعش يا عالم الإسلام ما أنت الدولة ده كردستان وبرانشيا أما فرعية قال زوما وح أمانك كسوجا يهين وبرنامج قالوا كانت ضدك أيوة أسوة تبرتين واحد إذا مركا هداد إسلام كنا ربطينا تكوها يسطو أمانكاس أتشاقنا يسنة قال أمانك يسود يانك يسوي ياهي ويراد إن راعيه ويسأسأل هذا كتاب فيه كل سحر إنكار مروا صوت درسه صوت ما درسنا هذا صوت درستي أو مسلم كواي يقين قال وحوي لكن هذا أنت أيان تكرر برنامج الإسلام كوه بعكو قال أسد واحد مودا قالت إني أخيار تحي يا ونك يوكله ويرك إرجع الله هاي بلايا كود عادي أو وحش قديس إنه إرجع الله وحنين مية يا قال كأنه كتابه كوس حروضه وجبوا أو وحكش يجوا سحر واي مري إلى جنون واي أو راسادير الأولين وحكوا قالوا بوح كلام مع موقت اسكوها برانا قال كأيو مارتي أنا قصامة وحكوا قالوا بقلوا ديدي وركي ألا نوادي صامة تين تسوقوا قالوا بأذوق ما خيارة مليس وهذه قديس أنا ما كوا صوت درسه صوت درسه وشغلوا ذي قبسدين هذا سي وهبعكوا قاله بالحوجة هذا محاضرات المركز القبائي وأجيه ضدكم إن بدنا كم هذا لكن ضد بدنا على الرواب بالحوجة إن وحل لا يترك الحديد ما دام ساخنا برت وحل الطمع أنت كلوشه دعنا أنت دعنا الرواب إن لوجيه محاضرات كليدا ها ما أردت قال الحق هذا سيسعد شاء الله مركز لو قحنا محي سميناي وحي سميناين كتاب بروكسي كلين هديات ولا امتحانه امتحان لازم ما قاعد ما مركز هذا لو دفع وأقولنا هذا أنت كيلا صورنا أنا وكيك قرب كتابك كروك سلي هذا نوع عليه هو شيء لفته سو عصبوريسي هلو أركي يا وبرنامج شروط اللي قرب يقيب كتاعي وحكى له لا ربا مركي إن تفهمته هذا هو وير ضد كإيري جيت كاي قان بعديه ضد كجوبي جر قيد إيريجو إبر كدقة حتى هذون عوني واسك الله يحصل نكوس يا هذا كإيريجو بالخن قال هذا مركه وشغله دواساس maxay la marba haday gaala noqdeen waa shaqadoodii yaa wasaas ma garad taas marka waxa gaala ku raaca inay kitaabka ku saxaroodaan oo ay jarjaraan oo colka ay u qabaan ay sida u muujiyaan asbaabaha qaybka wana quraanka oo intaan soo qaadan asbabka labaad oo quraanka ay u jarjaraan maxuu yahay quraanku ayagoo ka warama adiga hadda waa faruuriye iyo malab ku marsada dawladaha horu maray G8ka 28ka iyo balaayiin ku akhriya wadamada horu maray heer galbeedka gaala lama yiraahdo moogdiino wax kala dhihi kara in yar waay maahine gaala lama yiraahdo غير المسلمين yaa leeyahay quraanku marka wuxuu ka warama dabaa'icood oo wuxuu leeyahay bani aadam karaamo leh oo ilaahay karaamadow sii haystaba ma gaalad karaamadi waa ka dhacay asfala saafiliin noqday asfala thumma radadnaahu أسفل سافلين أنت هوسين بدين معاك لو ليه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام لمن كهروا مري أنعام هدي لي لو جالي إري لمته قرآن كده ما دافكره وحي ليه كان
intuuba yaallo bis waayo. waxaan horumar ka sheegaynaa waaba kanoo kale caamiyaa taale eeyow la mid yahay qofka aayadihii ilaahay diiday famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dalika mathalu lqawmi aladiina kadabuu biaayaatina. qur-aankan waa in lagu saxaroodoo la ihaaneeyey leeyihin sababtu waa kaasoo eeyow nagu sheega. muslimka waxay naga aaminsan yihiinoo xun waxa ku tirtirsiiya waa qur-aanka. saa darteeda xoolay naga raadiyo kastoo lagu sheegay telefishinka kastoo ka lacaamay haysta ilmaha xafisan ma garad ka mathali kalbi haysta ka mathali ximaari haysta qur-aankan mar arki karnay leeyihiin mar sharad dawaabi haysta inta alla abuuray wuxuu yihiin mujada dameeray lamid ka annahum humurun mustanfira waxaasoo ilaahay muxuu cadeeyaa wakadalika nufassilu al-aayaati walitastabina sabiilu al-mujrimiin. wax kasta hadday kugu akhriyaan waa idin aqaanaad leedahay yaa kuu akriyay dowladaas yaa kuu dhigo kuleeyahy dugsiga qur-aanka soo barta mas gaal horta adigu ma tahay ya waa isku rafaadsannaha marka. hadda ka hor waxa istiin idaacadda b b c da oo idaacadda kirishtaanka midaa wuxuu iri gaalada u dhihi maaga midki meesha joogo oo hebel la dhahayay hadda magaciisa waa taqaanin uma leeyahay odoga ka ahay wuxuu iri maya heer galbeedka dheh kulaha gaalada haddayna heer galbeedka dheh. wiilkaan xoogaa hadda dawro loo dhigo waayo xagga lagu biiriyo oo iftiinka laga baxsho waamaana waxaa dareemaya inuu xoogaa gaaladii iyo la bara biriga horo oo dugsiga soo mara ma garahe. marka waxaa ka mid ah oo sabab kale ah qur-aanka waxay ku necab yihiin tilmaamahoodii oo kala dhigdhiga mufassala inayna dad ahayn oo haddaad la tacaamulayso ayna dadba ahayn ay yihiin kalan caami كمثل الكلب كمثل الحمار كأنهم حمور مستنفرة شر البرية شر الدواب يعني آخرنا وقودها الناس والحجارة نجح إياه ملس لقيها ضد ما هذا قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة سمين تاسنا ومد لبعضهم ما أرك كلام وحي ليه القرآن كان أنا حان نجترا مركب ما تغني وحان نجترا xogaa dhalahay sameysteen yaclamuuna daahira min alxayaati addunya wahum can akhratihim gaafiluuna waaye waxay istameen nalal iyo xoogaa dhalaho biyo iyo ilaahay maaragtay inta ugu nicme u sakhiray iska adeegsadeen asay dayaarado iyo tareeno iyo kombiyuutaro iyo teleefonay samaysteen iyo xoogaa maaragtay dadka markii meel xunta le waa la qalaa tumalnimadaasay baashi tuulay dhisteen tuulooyinay dhisteen waxay yidhaheen marka waa kan adawaatu tarfiih qad wafarnaaha lakum waxaan nahnay baashaan anuguna kama maaranay waa sidee baashaan waxay yidhaheen nimankii sameeyey waa niman alla diidica oo aakhira diidica. haddaad rabtaan qaabkaa u naalaad u naalaysiin ilaahaad ku kufrinaysiin muslimkaad dilaysiin waad dhilaysaysiin wixii cibaaduraxmaan ilaahay kuma tilmaana yidhi o dhan aad sameeyeysiin waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu. waxay yidhaahdeen alaabtan haddaad rabtiin tafaariiq la yeeli maa waa la isku jumlayha waa isku qaadaysiin gaalnimada iyo dimuqraadiyada iyo gaalnimada dimuqraadiyada yaqanin ayagu marka taasna waa ka maarmi la'naho waxaan leenahay waa run niman xun waayo laakiin haddee noloshii jirta meesha sheekh kastaba wuxuu ku leeya waa lagu qasban yahay iyo in yaroo alla unaxariistay maahay in yaroo alla unaxariistay maahayne waa lagu qasban yahay ad maqle war yaa igu qasbay muhaajiriin iyo ansaar ayagoo arkaayay ka tageen noloshii maaha lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim kuwaas la soo raacdeeyey soo dhaweeyeen ansaaruna ase waxay yidheen soo dhawaada adduunkana haydna diraysan hadaaratiyo noo imaada annagaa dhulkeena ku soo dhawaada annagaa idin difaacayna inti gabaru naga dambayso nabiga calayhi salatu salaam iyo asxaabtay ku leeyihin ridwanullahi calayhim. ayib mas'alada oo haddaan soo koobo taasina waa masalada labaad. mas'alada saddexaad oo iyaduna khatarta ah waxaa ka mid ah imanka gaaleed qur-aanka arki ma karaan waataeeda waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin tacrifu fi wujuhi aladiina kafaruu almunkara yakaaduuna yastuuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina inay ku boodaanayba ku sigaayaan kuwa aayadaha ku akriya leal ya waa necab yihin moogta
markaas ilaahay wuxuu leeyahay wax ka xun ma idiin sheegaa annaaru wacadaha allahu aladiina kafaruu aayadii kale waateeda wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun dadka saxaabadii u ifahansanaayen ridwanu calayhim waxaan laakiin annaga mushkilada gaaladiian la dhaqana moogtaha ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiirun fitnadii weyneedaa timid maxaa yaele muslimna inuu muslim la dagaal raba gaalne inuu gaal la degoy lama daarood kala lahadaa ilan gaaladu waa niman yani cudurkii gaalnimada jahanamo lagu gelaayay qabaan waa la karantiila moogta daaraa la siiha looma diri karo ilaa qolo dacwada usoo sheegaysa maahine oo soo daweeyaysa oo dhaqaatiira maahine qolo kale lama digi karaa haddee barnaamijka meelo badan u leeyahay laakiin waxay ku nacaan waxaa ka mid a ilaahay wuxuu fara dagaalka la dagaalama soo marhi ilaahay faqtulu lmushrikiin gaalada dilow iyo yidhi faqtulu aw wuxuu yidhi kadalika jazaau lkaafiriina gaalada abaalkooda caynkaas waa in nag laga dhigo nag ka dhiga waa og yihiin marka ayaan maxay yidhaheen moxamed ase awal irhaabiyiin ahay yidhiin mugta ya culummada islaamka qaar kamid oo xoogaa adigu haziima ruuxiya ku dhacday ilaahay soo kiciye ayay waxay gaaladii u tageen marka waxay yidhahdeen gaaladii bal xoogaa gaaladii waxay yidhahen war dagaalka nagada usha aan dhexda ka qabano insaaniya naga dhexayse bal xoogaa insaaniya nagama dhexayse yidhi laba masala idinkaa la ydinka rabaa yidhi nimanka jihaadaaya aayadaha qur-aanka oo qur-aanka ku yaala ayay fuliyow haayaan laba idinkaa marka la ydinka rabaa maadaama nimanka jihaadaaya waa qaldan yihiin aada leedihiin qur-aankiina ay hirgeliyaan aayadii anaga akrino waqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa inaad tidhaahiin qur-aankaa qalada maadaama nimankan waxay fuliyaan qur-aankiin qur-aanku ma jira inaadna tidhaahiin iyo midda kale inaad tidhahiin nimankan qur-aankii maadaama yaraa qur-aankuna sax yahay waa sax inaad tidhaahiin labadiiba dhihi ma karaan marka isugu leeyahay n xaytara iyo maaragtay leexleexad wax ka jira ma jira nimankaasaa runta sheegayana idinkuna filim waa aragteen laga soo duubaan umaleya odagaal oo kiristaan oo duubaay waxay yidhaheen nimankaasaa saxda u dhow nimanka dha usha dhexda laga qabto diinta si quman uguma socdaanay yidhihin oo ananka noo soo dhow laakiin nimanka dhahaya qacda ha laga gelsho ilaa ay islaamka ka galaan amay jizye ka dhiibaan nimankaasaa diinta runka ilan waa akriyin m taas marka iyaduna waxay kamid tahay dee nimanka qur-aanka yidhi ha maqlina wa ya laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum taqlibuuna soo ma waxaa ka mida marka yani in nimankaasu ay yihiin sidaas ayib ilaahay maxuu naga rabaa marka garanay labada masalo masalada saddexaad muxuu ilaahay naga rabaa ilaahay waxuu naga rabaa inaanan marka noocaasoo kale horta ka dhigan inaan horta nacno kayr maqduubi calayhim soo ma inaan horta u caroon waxuu naga rabaa aanan jeclaan oo naga xarimay maxaa ilahi waxuu leey ya ayuha aladiina waateed waidaa ra'ayta aayaddi maxay ahayd fi suurati alancaam aayadda ku jirta waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fi aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fi xadiidin gayrih waima yunsiyanaka shaydaan soo mahayn iyo aayaddi kaleeto ahayd aayaddii kale iyaduna waxay ahaaday oo ku jirtay ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda maxaa ku xiga waqad kafaruu bima jaakum min alxaq laa yanhaakum iyo aayaddi kale ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzuan walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum diintiina maxay ka dhigteen huzuan walaciban min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum walkufaari wliyaaa wاtaquu llaha in kuntum muminiin wahaakada wuxuun ilaahay noo diiday in aan la fadhiisano inaan jeclaano ilaahay noo diiday inaan tawalli oon kalgacayshano ilaahay noo diiday laa tattakidu lyahuuda wanasara imisaad aragteen ilaahay subxaana wa tacala waxaasuu naga dalba wuxuu leeyahay haddaadba in kuntum mu'miniin haddaadba dad alle ku xidhan tihiin dadkaasu in lala fadhiisto maaragtay waxay diidaysaa diintiina ay dhaawacaysa inaan loo tala doonan alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila طaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaydan ilan waxaan lagu leeyahay sharciya dawliya waa taaguutkii matasha soo ma inaad u tala doonato ma qur-aanka waxay u nijaasiyaan waxaa kamid a hadda ayagu waxay soo wataan taaguutkoodii oo hawadoodii ay rabaan inay meesha la yimaadaan
qur-aankaanoo yaalna keeni ma karaan oo waa baduuqa fayadmaquhu waay marka qabyo qoraalka dastuurka la rabaa in maaragtay bal meesha looga saaraya dad ayagu barnaamijkaas haddii dadka kow dhibka ku hayana annagaa kamida waatan horuu sheegay oo hadda ninka culuumulqur'aan culuumulxadiid yaqaan aqoon-yahan uma naqaano soo ma waa wadaad allihii alle ah alle halle wuxuu og yahay mal allihiisa allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haddii allihiisu alla yahayna wax ogaaday yahay maxay tahay waxay yidhaah kii kaloo gaaladii soo bartay ee qawaaniinteedii ahwaa-ulbasharkeedii soo bartana waxaa la leeyahay aqoon-yahan waay ha heer sara waay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun haddaad rabto marka inaad caafimaaddo calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiina cabduu calayha bالnawaajid إiyaakum wamuxdathaati اlumuur in sha allahu tacaala taasina waa sida waxaan in sha allahu tacaala yani qaabka aan kusoo gebagabaynayo waktiga gebagabaabay dhammaaday qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kafaalo qaaday oo ilaaliyey inaa naxnu nazalna dikrah wa inaa lahu laxaafiduun waxba yeeli ma karaan si kastoy u sameeyaan waxay yeeli karaan male annagaa marka ilaahay nagu imtixaana dadkii marka ilaahay qur-aanka ku xifdi lahay oo ka aargoosa lahay dadkaas inaa naqalaal raba waad ogsoontihiin adoogi nabiga calayhi salaatu salaam caayey kacb ibnu ashraf soo maahay moxamed ibnu maslama radia allahu canhu iyo raggiisii say u ikhtiyaaleen yah waxaad ogtay sameeyeen markaasaa gurigiisa in loogu taga waxaad ogtaa lagu sameeyey hadda waxaa la rabaa guryahooda in loogu tago rag badanaa diyaaru ah inay meeshay joogaan ugu tagaan in sha allahu tacaala marka waxaa la rabaa inaan noqono dadkaas ama dadka u kaalmaynayo labada waxaanayna isku naqan inaad jihaadkaas iyo barnaamijkiisa jihaadka waxaa qaybkaa dadka in wax loo sheega qaybkaa soo ma iyo qitaalkii oo qofkii kitaabka diida baahasha lagala kor tago ma garat dii ilaahay iyagoo ugu fara xagga cirka iyo ay haystaan arrinkana wax dhan loo cajiinahan iska cajiinayna markaasaa meeshooda buska looga kiciha ma garat baabuurkaa lala raaca gurigaa lala gelaa xaafadaha loogu aasaa ayaga marka ninba meela ilaahay uga furaa moogta maxaa la adigu waxweymaysa ma stadactum al rabaa moogta waaciduu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwa marka qur-aanka alla ilaaliyo waxba yeeli ma karaan laakiin aninka alla nagu imtixaana walow yashaau allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd in sha allahu tacaala dadka labadaas ayaa mid la rabaa amba ninkii ku dhifaayo noqo ama ninkii u kaalmayhayo noqo heesku naqanin mid oo maaragtay kale diintaana idaa guulaysaysa walaalayaal maalkooda iyana ku kadsoomin gaalada waatayada falaa yagururka taqalubuhum fi lbilaad laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad falaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum nasriga ilahay waxa uu ballan qaaday muslimiinta nasrigana waa dhow yahay in sha allahu tacaala oo gaal hadda weligii 100 sano wax ku dhow ma usan maqlin nacamaana wax kalama hadda leel soo lama dhihin maya marka maya saadila waa ku dhaha ma noolaahayso waa noolaha kuwana waa nool yihiin oo waaba kan hadda waa joognaa ayagoona nacab kuwii kaleetana litakuna kalimatu llahi alculyaa waxay u dagaalaho la dilay ayaguna noloshaa nolol ka qiimo badan ay jiraan walaa taxsibana aladiina qutiluu fi sabiili amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun nolol kalena gadaalow ku reebo hebel oo kala naqaa la leeyahay hebel sida usaama oo kale raxima allahu tacaala wuxuu ka tegay adduunyadii dhaldhalaalkii oo xoolahoodii kuma kadsoomin asoo halgamaayo ayaa haddaba la dila soo ma fuztu warabbi lkacba noocaasaa layidhaha guusha allahu akbar in marka waxaana laga rabaa aan noqono wacdigaas iyo ballanqaadka alle insha allahu tacala inaan ku kalsoono inahaasaan haddaba ka leenahay kolley waxa waaye in uun bal jalsada iyo bal isbaraarujinta iyo bal xoogaa lees jaleereewa waxa le ummaddu khayr waa haysataa oo waxa gaala ka qayla siiyey waa khayr ummadda ku jira waxaan marka idin dardaarma insha allahu tacaala yaa naha anagu muslimiin yaa nagu magacaabay allah huwa samaakum lmuslimiin islaamka xaggeen ka fiirsanaynaa kitaabka iyo sunnada fahmiga iyo yaan uga dayanaynaa saxaabadii maa ana calayhi alyawma wa asxaabii halbeego halkaas waay waxaan ama suufiye lagu leey ama salafiye lagu leey ama ikhwaan lagu leeya kulli waa madaarisi halbeegu maa ana calayhi wa asxaabii waay in kastoo shiikaaga kasoo akriso shiikaagu magefo maaha inta dhalow ku saxanya kasoo qaado inta kalena khayr allah si alla soo rushada u duceey culumadane in sha allahu tacaala
waa inaan miisaanka islaamka saarno oo macnaha si aan u saarayna qofka waxa uu ku fiican yahaana ka qaado wuxuuna ku fiicnayni adigu cidi kaloo ku fiican ka qaado. imaam malik muxuu raximah llahu tacaala kullu yu'khad min kalaamihi wayutrak ila saaxiba hada alqabr. waxa aan gefin waa nabiga calayhi salatu salam. culamada inteeda kale wixii ijmaac ka sokeeya maxay yihiin? yusiib wa yukhti. halbeeguna halkaas waay waa ku celiyaha insha allahu tacala. xoogaa waxaad moodaa ayaanta magacaan badana noo badano wixii waxaa le magac laba war anigu muslimaana oo gaalo iska dhicehay maya magac kuma filneen. magac waxaa la rabaa oo liiska ku gala huwa sabakum muslimiina i gelaysa in waxaad sheegayso waxaan lagu leeyahay ma dhinac way ka fiican taho mathala almuhaajiriin walansaar oo kale soo maarka ay almuhaajiriin walansaar maxaa u ahay halbeegu maxuu u ahay muslimiin. sidaasaa la rabaa marka insha allahu tacaala. ama islaamnimada waxaa lagu sa xagga mafaahiimta ma ana calayhi alyawma wa asxaabii waa halbeega halkaas. kanaa hela kanaa hebela kanaa waxay ku wareeg nin walba meeluu ku fiican yahay meeshiisa ka qaado. cabdullahi ninka la leeyahay shahiid cabdullahi cazaam raximah llahu tacala waxaa laga wariyaa hadal ahaa ta'ahartu bibni taymiyata caqiidata wabni alqayimi ruuxan wاnawawiyi fiqhan wasayid qudbi fikran. waa gurgurubsadee mogta nima meel u ku caynta soo ma abu bakr iyo cumar radia allahu canhuma hadba meel kuma fiicnayno wax ka dhexeena way jireen wahaakada. marka insha allahu tacala culummada ninba mawkuroy aan ka qaadano insha allahu tacaala yaana la dhihin sheikh macsuuma ilan adigu ma qabtid mawha ama hal mujaahid ha ahaado ama hal kale ha ahaado kulligood yusiib wa yaqti wa yutrak. marka insha allahu tacala intaasaan kusoo gebagabayha. gaalada allah jibiyo muslimkana allaha qawiyeeyo xoogna waxa ugu horeeya kitaabka. gaaladii maxay yidhiin mataqaanin wuxuu yihi maaragtay hadalkaas yaraan rabaa inaan ku daro qur-aanka maxaa loo jeexjeexa maxaa loo dila faransa qisadii ka dhacday wuxuu yihi maada nasnac ida kana alqur'aanu aqwa min faransa. macnaha qiso dheer ay ahayd laakin waxaa kaloo yidhahdeen lan nantasira cala almuslimiina maadaama alqur'aanu fiihim wayatakalamuuna bilugati alcarabiy. luqa alcarabiya lafteedu waa muhim. marka baaraka allahu fiikum insha allahu tacala intaasaan kusoo gabagabayha. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.